madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa madaxtooyada ku qaabilay culimo uu hogaaminayo Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka soo kacay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. ujeedada socdaalka culimada ayaa ah ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha, darsidda nolosha dadka iyo dunyada ay saameysay abaartu iyo wacyigelinta bulshada. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa culimada uga xog waramay xaaladda guud ee abaarta deegaanka. oo khadara ay dib u dhacaan marka xaalad way sii adkaan guud ahaan waxaan anu isleeyahay dadkeenu maadaama oo hadda magaalooyinkii uu ku soo badanayo in qorshahan hadda jira qorshe ka duwan development center si loo sameeyo dadka jigo kale biigelin hadii leedahay guriga biigelin leedahay qabtaha dhagax buur wadheer kooytoonka gobol caasimadooda ugu yaraan 300,000 qof haday ku nool yihiin population-na waa 8 milyan baa laga yaabaa half of population waa dad aan fooq ku xidhan noqon inta soo hadhana tuulooyinka faraha badan ee la sameeyay meelaha ugu habboon in xarumo looga dhigo xilliga jiilaalka ay ku soo ururaan oo biyo gelin inta kale roobku daayana meesha doonay tuulooyin doon hata meesha doonay geeysa ku dhacdo laakiin markay xaaladdu adkaato meel service-ka laga gaarsiiyo oo caafimaadkii iyo biyihii iyo baadkii iyo wax walba uu imaanayo in loo sameeyo way qaabka looga bixi karaa. dhibaatada dadkan haysataa waxa weeye waa amni darradii jirtay boqolka sano oo dadku ay isku xisaabtankoodii iyo meesha ka baxay marka wax badan dowladda ku xiranta hadda laftiga sanadkan waxaan qabaa inay seel ka xumaan lahayd haddii dadku ayna seel qaadan aad buu shacabku u gurmaday isugu gurmaday waxaa laga yaabaa anigu inaanan ogeyn oo anaga aanan ogeysiinayn laakiin ninka $200 $300 u diri jiray ee 600 diraya reerka ku soo qaynaya ciid ka badiyay وانا دوكيمنت جرين وانا ولي دوكيمنت جرين ويا aad buu dadku soo caawinaya tuulooyin badan waxaan ognahay aqoon joogto u dhaafis oo lacag soo diraan oo gooyada u kareeyay intaas oo saas hadana kolkay masiibo timaado dadna ka faa'iido masiibada dabcan way jiraan. Sheekh Umal ayaa sheegay in waqtiyada noocan loo baahan yahay kaalinta culimada iyaguna ay sii xoojin doonaan baaqoodii ku aadanaa gurmadka abaaraha. markii ay dhibaatooyin noocan oo kale ay deegaamada Soomaalida ka dhacaan waxaan lahaan jirnay inaan ka falcelino oo wixii suurtagal bulshadaas Kenya ku leh Soomaalida iyo dibadahaba inaan baaqiyo u dirno si dhibaatadaasi fududeynta looga qayb qaadano. annagu waxaan u baahanahay macluumaad aan ku shaqatano maado iclaamiya oo lagu shaqatano dadku waxay wax ka garowsanayaan oo la ururin kartaa markay maadadu soo gasho media soo gasho haday meeshii oo dhibaato ka jirto oo baaba'aysa hadana ayna media soo gelin adiga ma gelin kartid mar la garowsanay marka hawshaas waxaad muddaa xogaa dibdhacaas inuu yara jiro muddaa haddana waxay la tahay insha Allah taala kulay wixii aragtiya iyo talooyin khibrada waxaan wadaagi doonaa qolyahan gudiyada ah mar kale waa mahadsantihiin jazakallahu khairan sida loo soo dhaweyseen iyo kulankan degdega ah waxa kale oo runtiidana muhiima madaxweyne bini aadan baa leeyahay waxa la qaban karo iska yar musiibadan in ilaahay ma faydi kara dadkan ilaahay baa deeqi kara marka waxa muhiim ah in bulshada lagu wacyigeliyo dowrkaas culimaduna way leedahay madaxduna way leeyihiin in lagu wacyigeliyo in xagga ilaahay la aado oo alla bari la galo oo roob doon la galo oo toobad iyo ummaddu inay soo noqoto ilaahay u soo laabato waxa waa musiibo ilaahay keenay sabab ay leedahay taana in lagu baaqo oo amar la soo saaro dowladda ka socdo majlisul calaha marayo oo gobolada dhammaantood in roob doon laga sameeyo oo dadku ilaahay u soo laabtaan oo qodobkaasina waa muhiim. culimadani ayaa baryihii ugu dambeeyayba waday baaq ku aadan gurmadka abaaraha oo ay u sameynayeen bulshada deegaanka ee wajahaya abaarta baahsan waxayna bixi doonaan socdaal ay ku soo xaqiijinayaan xaqiiqada dhabta ah ee nolosha bulshada ay ku habsatay abaartu.